waxaana wanaagsan asxaabta youtube-kan ku xidhan aad bayd islaamiya dhammaantiin maanta waxaan sii wadi doonaa koorsadeennii horey inoogu bilaabantay muddo ilaa 3 bilood 2 bilood meelaha gaadhaysa ka hor taasi oo ahayd barashada luqadda ingiliishta oo aan ka soo bilaabay ilaa heerka u hooseeya casharkan wuxuu noqon doonaa kii 6aad haddii ay tahay markii koowaad soo boqoto youtube-kan magacaygu waa Cabaas Jaamacali waxaan ahay macallin dhiga luqadda ingiliishta haddii aad ka mid ahayd asxaabtii hore ugu xidhnayd youtube-kan waxaan kugu dhiirigelin lahaa ama se kugu baraarujin lahaa like isla marhaanta inaad nagula wadaagto faaladaada wanaagsan commentiga haddaba si aan fahamkaaga xumaan casharkan waa kii 6aad waxaan kugu baraarujin lahaa inaad soo daawato kiisii 1aad ilaa kiisii 5aad oo aan kuu soo dhigi doono descriptionka hoose haddaba aan toos u guda galo casharkan wuxuu ka hadlayaa there is iyo there are si guud maxay ka hadlaan there is iyo there are waxay ka hadlaan essentially asal ahaanba they both labadoodba indicate waxay noo sheegaan the existence jiritaan wax jira existence of something bay noo sheegaan waxay ka hadlaan wax jira markaad leedahay waxa jooga dad fara badan wadada markaad leedahay waxa jirta sheeko aan kuu sheegayo waxa jirta su'aalaha noocaasi oo kala dhammaantood markay maskaxdaada ku soo dhacaan ama aad ka hadlayso wax jira something existence aad ka hadlayso waa inaad isticmaashaa there is iyo there are haddaba qaabka ay ku kala duwan yihiin waxa weeye there is tay la socota istu waxaa loo isticmaalaa keliga for one thing hal shay ayaa loo isticmaalaa and there are tay aartu la socotaana is for multiple things markaad waxyaabo badan sheegayso ayaa loo isticmaalaa markaad leedahay oo kale waxaa jirta hoteelo fara badan oo ku yaala magaalada Burco there are ad isticmaalaysaa oo odhan maysid there is odhan maysid waayo waa 2 ilaa 3 ilaa 4 ilaa wixii ka badan laakiin ista waxaa loogu talagalay wixii keli ah ila soo eeg tusaalayaashan markaa si aad intaa in ka ballaaran u fahanto waayo tusaaluhu waxa ugu dhow cid waliba wax ku fahmi karto waayahay samples aynu eegaynaa haddaba singular oo wixii keli ah keliga waxaan hore u soo sheegnay there is inay ka hadasho waxa keliga markaad leedahay gaari ayaa wadada taagan gaari qulay sheegayso waa inaad there is isticmaashaa there is one car on the street aad tiraahdaa tusaalaheena koowaad waxa weeye markaa there is a book on the table book ayaa saaran miiska there is only one answer to this question waxaa jirta jawaab keliya to su-aashan u leedahay ayaa jirta there is waxaa jira only one answer keliya jawaab quroo to this question jawaab su-aashan u leedahay waayahay example 3 there is a new restaurant down the street waxaa jira hotel cusub oo xagga down streetka ku yaala wadada hoose ku yaala plural halkay ku qoran tahayna waa wixii jamaca markaad sheegayso 2 3 4 waa inaad isticmaashaa there are example 1 ay leeyihiin xagganna there are several reasons waxaa jira sababooyin dhowr sababood baa jira dhowr sababood ayaa jira taasoo I am with you aan anigu kugula socdo ama aan kugula joogo waayahay there are many people at the party xalfadda waxaa jooga dad fara badan waayahay example 3 ayaan haddana eegaynaa example 3 ayaan eegaynaa there are 2 birds on the tree 2 shimbirood ayaa geedka saaran weeye there are waxaa jira 2 birds 2 shimbiroodoo maxay on waa xagga sare the tree 2 shimbirood ayaa geedka xaggiisa sare saaran intaa waxay noogu eega casharkeennii 6aad ee qaybta dhigashada luqadda ingiliishta aad bayd islaamaya waa anigoo Cabaas Jaamacaliya السلام عليكم